بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أخوتي في العقيدة، waxaynu ka warramaynay mawduuc ku saabsiisan nafta bini aadamka iyo shahawaadka loo qurxiyey iyo qofka muslimkaa mowqifka la rabo inuu iska taago, inagoo adeegsanaynay min khilaali qisati aadama calayhi salaam iyo qisatu yuusuf. waxaynu qisatu aadam salawaatu ullahi wasalaamu calayhi kusoo tilmaamnay qofka mu'minka iyo shahawaadka uu jecelyay ama manaafid dacfi albashari, bini aadamka iyo meeshuu jilicsan yahay. waynu nidhi waxaa ka mid a jacaylka nolosha la jecel yahay, waxaa ka mid a baynu nidhi almulk. waxaynu soo sheegnay nusuustii kusoo aroortay masaladaasi. maantana waxaynu waxoogaa intii alla subxaana watacaala inooga fudaydiyo ka tilmaami doonaa mas'ala ku saabsiisan iyana shahawaadkaasi oo ah masalat الnisa. zuyina linnaasi xubu shahawaati min الnisa. qofka bini aadamku alla subxaana watacaala tilmaamaya in loo qurxiyey haweenka. aslan ragga iyo haweenka ilahay baa isu abuuray subxaana watacaala, waana baahi bini aadamku uu qabo siduu baahida calooshaba u qabo. yani baahiyo badan buu qofka bini aadamkii leeyahay. baahidaasi ay ragga iyo dumarku isu baahan yihiin waa baahi kamida baahiyaha basharka, laakiin waa baahiyaha le dawaafic tiro badan oo qofka hore u riixda, se u baahan in badan dawaabid ama waxyaabo ilaaliyo oo controla oo qofku uu ku badbaadi karo. nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi axaadiista ka sugan waa ka ku tilmaamayey waxyaabaha ugu daran, waliba ummadiisa yani fitanka ugu daran. ma taraktu fitnatan ashad cala ummati min fitnati الnisa waina fitnatu bani israa'iila kanat fi الnisa, ayuu nabigu tilmaamayey salawaatu ullahi wasalaamu calayh, inuu haweenku yahay fitanka ugu daran ee qofka soo waajaha. weliba qisadatan haddaynu in yar u fiirsano oo runtii inagaga filan mas'aladatan iyo suuradeeda dhammaanteed, qisatu yuusuf oo ilaahay subxaana watacaala rasuulkiisii iyo nebigiisii ah. yuusuf suuradda qur-aanka ilaahay kaga warramaya mixan tiro badan baa loo soo bandhigay. ilahay wuu imtixaamay, imtixaanaadkaasi uu ku guulaystay. waa la imtixaamo, waxaa lagu imtixaamay kalgacalkii aabihii oo ay ka qaadeen walaaladii xaasidnimo oo ay dabeeto god ku rideen, god cidlo ku yaalla baadiye madow oo aan cidina kuugu imanaynin. waa la imtixaamo, waxaa lagu imtixaamay in inta god laga saaro ikraam ulmathwa uu gaadho haddana oo qoys boqortooyo uu la noolaan karo. waa la imtixaamay, haddana waxaa lagu imtixaamay jamaalkiisi iyo quruxdii alla siiyey subxaana watacaala oo guriga boqoradaba habartii joogtay looga taag waayey. waa la imtixaamay nabiyullaahi yuusuf oo waxyaaba alla subxaana watacaala uu ku imtixaamay waxaa kamid ahaa in haddana uu xabsi galo. waa la imtixaamo, waxaa lagu imtixaamay waxaa kamid ahaa intuu xabsi ka soo baxo
haddana inuu dadkaba quudkooda iyo xoolkooda iyo maalkooda iyo maamulkoodaba haddana gacanta loo geliyo min alxabs ila almulk inuu haddana ku noqdo. waa la itixaamo, waxa lagu itixaamay mashaacirta bashariga ah, walaaladiisii godka ku guray iyagoo baahan haddana inay u yimaadaan oo iyagu wax dalbaya. kullu dalik waa imtixaanaad kala gedisan oo ilaahay subxaana watacaala nabiyullaahi yuusuf mariyey. imtixaankaasi aynu inagu isku dayno bal waxoogaa inaynu is ag taagno waa imtixaankan ku saabsan haweenka. cumuuman ilaahay subxaana watacaala wuxuu qur-aan ku tilmaamaya waraawadathu alatii huwa fii baytiha can nafsih wagallaqat alabwaab waqalat hayta lak qaala macaada allahi inahu rabbi axsana mathwaay inahu laa yuflixu alظaalimuun. ilahay wuxuu tilmaamaya subxaana watacaala nabiyullaahi yuusuf in la itixaamay oo haweeney lagu itixaamay. ugu horeyna ilaahay wuxuu leeya waraawadathu alatii huwa fii baytiha, waxa hunguraysay, waxa u yeedhay. almuraawada yani waa si laqsi ku jiro oo qabow marka la isugu yeedho. waxa hungurayso u yeedhatay baa ilaahay leeya subxaana watacaala tuu gurigiisa joogay. awalan yeedha ay gabadhi iyadu ku dhawaaqdo in uu xaggeeda ka yimaado inay ninka u baahan tahay, waxaad moodaa martabad dambe inay tahay. kaanamaa ilaahay subxaana watacaala aanu inooga waramin iqra'aadkii hore ee tirada badnaa ee meesha yaalay. aakhiru lamri laynoo tilmaamay oo ah waraawadathu alatii huwa fii baytiha, inay iyadu dalabtay. waxaa kaloo laynoo tilmaamaya nabiyullaahi yuusuf inuu iyada gurigeeda joogay, oo cidda dee sayidkaaga ee ku maamusha awaamirtiisa iyo dalabkiisu waad uga jilicsan tahay qofka dabadda aad ka joogtay caadiga ah. markaasaa la yidhi raawadathu alatii huwa fii baytiha baa ilaahay ku tilmaamay subxaana watacaala. waxaa kaloo la tilmaamaya yani musiiraadka ama wasaa'il ljad dhammaanteed inay meesha yaaleen. waxaa la leeyahy wagallaqat alabwaab, waa xidhxidhay albaabada dhammaantood waa soo qafishay baa la leeyahy subxaana watacaala. waa shay labaad oo qofka hunguri gelin kara. haddii cidla oo albaab weliba kuu xidhan yahay oo dalabku iyada ka yimi gabadha, oo gabadha ay sayidadee ama gurigii dee ciddii lahayd ay tahay, oo isagu uu raqiiq yahay, oo qofka raqiiqa ahi ama qofka la adoonsanaya waa ka jilicsan yahi o waxan waa uga jilicsan yahi yani qofka isagu xorriyadiisa iska haysta. weliba wasaa'il tashjiic oo dhan bay isticmaasho, muraawado qura qadiyadda kumay daynine. ilahay wuxuu ku tilmaamaya subxaana watacaala waqaalat hayta lak, waxay tilmaamaysaaba soo dhowow, kaalay bay sii sheegaysaa. yani waa waqaxaankii ugu dambeysay islaamku joogtaa marka kan. ilahay subxaana watacaala wuxuu tilmaamayaa inay isku dayeyso inay soo dhoweyso. waxa intan raaca inuu nabiyullaahi yuusuf dhalinyaro yahay, waayo aayaadka qur-aan hore waxay tilmaamayaan markii uu riqiyo addoonnimada ku dhacay, istibcaadka markuu dhacayo inuu ghulaam ahaa. aayaadka dambe gabadhu markay dumarku ceebeynayaan gabadha tanna fata bay ku tilmaamayaan. alfata fi luga cabdiga waa lagu isticmaalaa. waxaa kaloo la yidhaha qofku fi luga ghulaam, dabeetana fatwa, shabaab, dabeetana rujula buu gaadha. idan waa nin isna markaasi dhalinyaro ah oo dhalinyaronimo isu geystay buu u muuqdaa. iyana waa wakti kale oo qofka bini aadamkii la odhan karo waa waktiyada ay shahwatu nafsigu haweenka u haya ay aada ugu daran tahay. waxaa kaloo meesha ka muuqata gabadha tani dee u yeedhaysa waa ciliyat lqawmna, maaha gabadh suuqa iska joogto oo caadiya, waaba dee imra'at lcaziiz, waa gabadhii boqorku uu qabay. idan waa ciliyat lqowm bay ka tirsantay. waxaa intaas raacsiisan oo kale inay haddana gacantana xataa ku dartay, oo ilahi waa ku tilmaamaya wastabaqa albaab, yani inay gacanka hadal gaadhay oo arrinku aanu ahayn muraawado qura iyo wada hadal laleeyahay soo dhowow keliya, ee inay xataa isku dayday gacanta inay isticmaasho. waxaa intaa dheer ninku waddan aan waddankiisii ahayn markuu joogo had iyo goor ceebta kama xishoodo. dadkaaga iyo qaraabadaada iyo tolkaaga iyo meelahaaga markaad joogto ceebta waxa laga yaabaa inaad aada uga yuusuf dhulu gariib ku yahay oo addoonnimo loo gatay oo aan
cidina ka garanaynin ayuu jooga. waxaa intaasi u wada dheer baynu odhan karnaa marka way gabadhan isticmaashay wax allaaliya wixii qof bini aadama lagu hunguri gelin kari lahaa. ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya inuu nebi yuusuf isagoo halkaa jooga uu diiday. qaala macaada allah, acuudu billah, ilaahay baan magan galay buu leeyay nabiyullahi yuusuf. naftiisuu xejin karay iyadoo waktigani uu yahay wakti qofka isxejiyaa qof caadiya aanu ahayn. waayo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh axaadiistiisa waxaa ku sugan waktiyada ay xadku halkaa gaadho hadduu qofku isxejin karo inuu yahay dadka abaalmarinta weyn leh. qadiyadu ma aha qofku zinu ka tego keliya, waxa weeyaan waa mawqif xaraja buu galay, mawqif mashaacirta iyo cawaatiftu ay ka xoog badato inta badan caqliga. sidaa awgeed buu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidkii saxiixa wuxuu ku tilmaamayay 7 carshu raxmaan hadhsanayay ama hooska helayay maalinta qiyaamaha ee aan dadku hadhka haysanin. 7daasi waxaa kamid ahay oo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh tilmaamayay warajulun dacathu imra'atun datu xusnin wajamaal, wa fi riwaaya datu mansabin wajamaal. nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yihi waxa 7daasi kamid ah nimay u yeedhay gabadh qurux dhammaanteed iska leh iyo mansib ciliyatil qowmka ah oo markaa dabaqada sare ee la hungureeyana ka tirsan. waayo qofku mawqifka halkaasiyo intuu gaadho inuu nafta xejiyaa waa meel adag, waa meeshaasi dhaxal siinaysa maalinta qiyaame ee dadku cadceedu wada hoos taagan yihiin ee qof waliba uu dhididaya intii dembigiisu leekaa in ilaahay subxaanahu watacaala uu hooskaasi siinayo. waa mawqif adag inuu yahay waxaa kuu tilmaamaya xadiidu 3 saddexdii nin ee nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi uu sheegay inay god meel intay jirsadeen god galeen dabeetana dhagax kusoo dulundulcooday, afka uu godka ka xidhay. 3da nin midba camalkii khayrka lahaa ee uu ilaahay dartii u sameeyey ayuu alle ku baryay subxaana watacaala. midi biri lwaalideyn buu ku baryey, midina shaqaalihiisa u samafalay buu alle ku baryey, midi labadiisa waalid iyo sidii ugu samafalay. xadiisku waa macruuf agtiin ayuu ilaahay ku baryay subxaana watacaala in ilaahay godkan dhagaxa ka fujiyo. marka kan in baa fuqday. kii labaad wuxuu alle ku baryey subxaana watacaala. 3da nin mid kamidii wuxuu ilaahay ku baryey isaguna inuu nin shaqaalaha shaqadiisii markuu sirisi uu kaga tegay dabeetana xoolihii uu sii hayay uu koriyey, mar dambe uu helay uu wafeeyey iyagoo soodiya. ka saddexaad wuxuu ilaahay ku baryayey oo uu sheegtay inay gabadha ilmaadeeryin jirtay oo uu jeclaa oo uu raadceeyey oo hunguri badani ka galay oo diiday oo ka adkaysatay oo beri dambe isagoo weli kalgacalkii qalbigiisa sidii ugu jiro ay soo martay iyada oo baahiyeysan oo dabeete wax weydiisatay oo uu ku yidhi waxbaan ku siinayaa isukay dhiib, oo ay markii hore ka aqbashay oo uu u dhiibay 120 diinaar. 120 diinaar waa imsa 4.25 haddaad ku dhufato waa 510 gram, yani waa nuskiilo dahaba oo nuskiilo dahaba siiyey. oo bacda dalik markay isu dhiibtay ay ilaahay xasuusisay subxaana watacaala oo ay tidhi bikaaradatan ha ku goyni xaqeeda mooyaane, yani ariiqii ilaahay uu baneeyey soo marta mooyaane. oo markuu bayna shucaabiha alarbac uu joogay weedhatan la yidhi ay ilaahay xasuusisay subxaana watacaala. waa mawaaqif xaazima, mawaaqiftasan qofku hadduu isqabto waxaa laga yaaba adigu yani qofku markuu caadi iska yahay inuu yihahdo muxuu sameeyey, zinun buu ka tegay soo maha. zina maaha inaad go-aanka waktiyada qaarkood qadataa wax fudud maaha. yani zinadu marka lagu yidhaahdo albaabkeeda xidh ee hore inaan furin bay roonta. albaabkeedu markuu xidhan yahay inuu sidaa kaaga xidhnaadabaa roon. shareecaduna shahawaatu nafsigan waxaa la ogyahay go-aamadan cidda qaadan kartaa inay cid yar tahay. walidalik baa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sidan u dhiiri gelinaya uu u tilmaamaya dadkii mawaaqiftan qaatay ee halkan istaagay iyagoo u banbaxay fitnada
fitnada intaanad u banbixin inaad nabad gasho waa suurtagal. yani qofka bini aadamkahay markaad keligaa tahay waad isla xoog badan tahay, waad isla sabir badan tahay, waxaad is leedahay ma nin unba intuu jihaad galo masalan soo cararaya, laakiin markay xabaddu dhan walba ka yeedhay aftaada ku dhacday, kii kaa horreeyey dhintay, kii kaa dambeeyey dhintay, mid la eriyade ciidanku jabay, nafta markaa sabirta ee meesha ku adkaysata ee tawalli yawmi zaxfi samayn weyda, waka ilaahay u tilmaamaya inay khayr badan leedahay. idan mawaaqiftu insaanku markuu qaadanaya markay nadariyaadka tahay wax waliba way fudud yihin. qof muslimo la yidhi zina iska daa, inuu zina iska daaya wax fudud bay kuula muuqataa, laakiin marka xawaabista waxa kuu kalifaya inaad zinaysato dhame markay hareerahaaga joogaan ee qofku uu gaadho wadciga kan inuu halkaasi inuu waxaan rumeeyo iyo inaanu rumaynin inay u gaadho, oo uu markaasi mawqifka kan qaato, waa nin rag ka tegay ninka go-aankan qaata, waa nin rag ka tegay ninka go-aanka kan qaata. walidalik buu nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh axaadiistaasi ugu tilmaamaya toddobada qiyaamaha. yani ninkani yuu la socdaa, laleeyay dacatu imra'atun dhatu mansab, raggu la socda waxaa kamid ah imaamun caadil, umma kamila nin imaamu ahaa oo cadaalad u sameeyey oo mujtamac dhan xukumay, oo halkaa iyabaa laysku daray ninka naftiisao qudha xakameeyey. markii laakiin arrinku uu halkan gaadhay, markay gaadhay gabadhu inay xishoodkao dhan jabiso, inta badan waxaa la arkaa gabadhu inay ka xishood badan tahay ninka. inta badan waxaa macruufa inuu ninku yahay ka hunguriga badan le wax wada. inta badan waxaa macruufa gabadhu inay tahay ta la doono ee iyadu markaa isnafta xishoodkeedu, laakiin intay gabadhu xayada dhigtay inay iyadu muqadamaadka samayso oo iyadu bilowdaba warka oo iyadu codsiga keento, markaa uu ninku haddana isafkeeyaa waa xaalo khatara. walidalik buu nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu ku tilmaamaya warajulun dacathu imra'atun dhatu mansabin wa jamaal, nimay u yeedhay gabadh quruxna leh mansabna leh, wixii basharka lagu hungurayn jiray inha way wadataa. waayo waxaa laga yaaba hadday aada u fool xun tahay inuu ka fogaan lahaba foolxumadu inay yaqiiqsi keeni lahayd oo iskaga tago, laakiin waxaa la yidhi marka hore jamaali lmandar bay wadataa oo iyadaaba quruxdan isagay soo jiidanaysay. dhatu mansabna weeyaan, oo hadduu gabadha yaro xaqirayo dad hoose u arkayay waxaasi wax laga yaaba inu israa sharafta yaro ilaashiyo waa kan, laakiin waxaaba la arkay inay iyadu iska bidaysay marka kan. haddii gabadhiiyo halkaa joogta oo iyadu xishmada ka tagtay uu ninku mawqifka kan qaato, waa mawaaqifta ilaahay loogu dhawaado subxaana wa tacaala. sida daraaddeed baa basharku maadaama nuqdatu dacaf ay tahay, ilaahay ambiyada wuxuu inoogu soo diro len yidhi fabihudaahu muqtadi. inta ilaahay ka sheekeeyey ambiyo ayaa waxaa la yidhi iyaga hanuunkooda ku dayda. ambiyadu waa misaalkii xayiga ahaa ee dadka ahlul iimaanka u ahaa tusaalaha dhabta ah fi ayi baab. haddaad bukaan iyo xanuun iyo qof dhibi ayuub baa halka jooga, haddaad boqortooyo iyo maamul iyo xukum iyo hanti ballaadhni daawud iyo sulaymaan baa taagan, haddaad dawlad dictator iyo nimaan waxba wadan oo keligii ka hor yimi oo xaqa ku dhawaaqaya nabiyullaahi muuse halka joogo fircoon ka hor yimi, nabiyullaahi ibraahim oo namruud ka hor yimi baa jooga, haddaad jihaad iyo dagaal iyo nabiyullaahi moxamed ama ambiyada. yani qur-aanku waa amtila xaya, mawaaqiftu basharku istaagi lahaay oo dhan tusaale aan la siiyey. wiil kasta iyo gabadh kastoo shahwatu nafsi qaada, maryama alatii axsanat farjaha iyo yuusuf ba aakhira ku markhaati kacaya in la samayn karo oo ay tahay wax bini aadamku uu samayn karo, inuu qofku cifa yeesho oo uu dhowrsanaado. ilaahi subxaana wa tacaala nebi yuusuf markaa wuxuu inoogu tilmaamaya tuu gurigeedaba joogay inay iyadu dalabtay, way naftiisa ka dalabtay, way albaabada soo xidhay, way weliba u yeedhay, laakiin wuxuu xasuustay alle subxaana wa tacaala. macaada allah, ilahay baan magan gelayaa buu leeyay magangeliyo. inahu rabbii axsana mathwaaye, ilaahay subxaana wa tacaala waa aniga rabbigay, isagaana godkii iga soo saaray. idan haddii markaan dhibtu ay haysatay ilaahay ii naxariistay, wuxuu mudan yahay inaan u mahad celiyo ana marka aan nimcaysnahay ee wanaagga ku jiro inaan ilaahay xasuusto subxaana wa tacaala. haddaad rabbiga
alla ka dhigto subxaana watacaala. mufasiriinta bar siday ka dhigaan, haddaad ninkan madaxdaa ka dhigtana waa man lam yashkur innaasa lam yashkur illah. ninkan madaxdeedee yidhi akrimi matwa markii horeba soo yidhi, meeshuu seexanayo iyo dhulku degayo iyo meeshiisa fiicnaysi, yani waa balaaqa xeel dheer ba ku jirta. isaga fiicnaysi lama odhan, degaankiisa hagaaji baa la yidhi. inuu marka ka yidhaahdo inahu rabbi axsana matwaaya iyana waa macquul kale, oo ninkii quudiyey ee hagaajiyey ee caynka. waayo zinadaada xaliilatu jaarik iyo dadka kuugu dhowaad ka zinaysata waa ka nebigu ku tilmaamay inay ka fool xun tahay ta kale oo dhan. walidalik buu ilaahay subxaana watacaala magan galay. waxaa kaloo ilaahay sawiraya cawaatiftii bashariga ahayd haddana inay meesha taalay. walaqad hamat bihi wahama biha lawlaa an ra'aa burhana rabbi kadalika linasrifa canhu suu'a walfaxsha inahu min cibaadina almukhlasiin. mufasiriinta aqwaal tiro badan bay sheegaan, laakiin isku soo ururi, gabadha tani hamu ficlin wa qasdin bay waday, isaguna hami khaatira ah oo dhaafay un weeyaan. burhaankuna waa un shaygaa ilaahay xasuusiyey subxaana watacaala ayankan, shaygaa keenay inuu ilaahay xasuusto oo uu dib ugu noqdo alle subxaana watacaala. ilaahay baa wuxuu tilmaamaya waxaa sidaana loo yeelaya in xumaha laga weeciyo, waayo wuxuu ka mid yahay addoomaha mukhlasiinta ah. ibliisna waa kii hore uu yidhi aynu soo marray isagoo le addoomaho dhan waa duufsanaya ilaa cibaadaka almukhlasiin mooyaane, inta alla uu doortay ee xumaha laga dahiray intaa mooyaane. sababtan ilaahay wuxuu inoogu tilmaamaya inay arrintu dhaaftay war la isweydaarsado oo ay tagtay in la isqasbo. ka waran nin imra'a zaatu mansab wa jamaal intay wax warsatay diiday oo soo gaadhay marka kan inay gacanta ku isticmaasho qasabto, dabeetana iska celcelinayo oo orod miciin biday oo cararay oo albaabka gaadhay, oo albaabkii ay kula kulmeen sayidkii oo alfaya sayadaha lada albaab. islaanta waa islaam weyn oo caqli badan oo waa kan siday u muuqato jawaabaheedu waa usii diyaar. markay la kulantayba jawaab bay dhiibtay ay tilmaamayso waa maxay, ma jazaau man araada biahlika su'an ila an yusjan aw cadaabun aliim. ninka reerkaaga xumaha la doonaa maxaa abaalmarintiisu yahay in la xidho ama la ciqaabo mooyaane. laakiin nabiyullahi yuusuf afkalaqaad ba isaga tanina ku too hiya raawadatnii can nafsii bay difaaciisu noqday, iyada ay doontay. wax kale oo jawaabo u bixiye ma jirto. ilaahi subxaana watacaala wuxuu qur-aanka inoogu sheegaya in ilaahay markhaati uu bixiyey nebi yuusuf, oo dabeetana markhaatiguu markhaati furay, oo qaraa-in uu adeegsaday macquula. qariinadaasoo sheegaysa haddii maradiisu ay xaggan hore ka dilaacsan tahayna dee way iska haysaysay oo isagaa wax qasbayay, hadday maradu dhabarka ka dilaacsan tahayna in ay iyadu soo qabqabsanaysay isaguna uu sii cararayay. waxaa kaloo meesha ka muuqata dadka ciliyatulqowmka ee asxaabka jaahiliyiinta ee aan diintu qalbigooda xoogga u deginin, kiiradu siday u dhimato, dabeetana in warka la dambabaso uun oo aan wax weyn laga dhigin, oo uu yidhaahdo yuusuf markay qadyadu caddaatay acrid can hada, iskaga jeesoon adigo warkaa waxba ashaacine meeshaad iska joog in la yidhaahdo, oo gabadhana laga dhiga un wax iska fududun ahaayo la yidhahdo astaqfirii lidambik inaki kunti min alkhaati'iin loo tilmaamo. oo xataa aanay qisada ka muuqanin kiira inay jirtay ninkani cala alaqal wiilka iyo gabadha inuu kala kaxeeya. waxaa ka muuqato sida qisada qur-aan ku jirta inay weli gurigiina uu iska joogay, meel kale aanu geynin, haweeneydatan aan waxba la odhanin. waa mujtamacu markuu faasid noqdo, ciliyatulqowmku dadka kale un in sumcadda laga ilaashado o laismaqashiyo mooyaane xumuhu xuma uma muuqdo. waana jaahiliyaadkii hore waxay isticmaali jireen ilaa jaahiliyaadka hadda jooga. somaydan maqle madaxweyneyaal dhan oo fadaaix dumar iyo ceebo iyo beriyo baas oo odag iyo islaamti iska joogaan oo laleeya iska joog dhibi ma jirteen. wakadalik ayi jaahiliya diinka fogaadku uu ku dhaco waa sidoo tan un dhaqankooda. warkeedii markuu faafayna derbiga uu dhaafay ee magaalada uu gaadhay
إلا يدي امرأة العزيز تراود فتاها قد شغفها حبا تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين ليدي امرأة العزيز ويل كيدي يرابا يغاب عيسى وحل يدي شغاف القلب بابك قال يعني وحروبك يرد ورنها كل ضبولا حروب كوتشاحي حتى يعني قلبي أيود دقي كالقع لي عشت وحي وقبطي waxaan arkaynaa bay dhahdeen inay mid baadi ku sugan tahay markay ogaatay dacaayadii iyo warkii laga sheegay waxay isku difaacay intay dumarka u yeedhay may doodin oo may odhan anigu waxaan ma qabo ama sida tani ma jirto ama caynkani ma jirto waxay samaysay uun bii'a tay ku jirtay oo kale ah maadaama iyanay mufsidiin kale ku og tahay bii'adii oo kale hadday hagaajiso u sallaxdo waxay ogtahay inay nafsu shayana qaadanaysa waayo zinada may ceebeynina turaawidu fataaha un bay yidhaahdeen kaanamaa inay ciliyatu lqoom ahayd oo inan yaroo addoon aanay hunguraniyo caynkan oo kale ayay u muuqataa walidalik ba ilaahay subxaana watacaala wuxuu tilmaamaya intay casuumad u samaysay oo raashin u dhiibtay oo midiya siisay inay yuusufna tidhi soo bax oo dabeetana jamaalkii yuusuf markay ka argagaxeen ay gacmaha iskoogooyeen iyana waxay ku dooday markaa fadhalikuna aladi lumtunanii bih waxay igu canaananayseen waa kaa dabeetana war cad baabay furtoo ah waxa aan ugu yeedhayana hadduu yeeli waayo anaa naftiisa ka doonay bay tihi waanu iga adkaystay hadduu aqbali waayo waxaan ugu yeedhayana waa xabsigaa loo dirayaa bay leeyihi oo kuwa la duleeyey ayuu ka mid noqonaya yuusuf weli fitnadii buu dhex yaallaa waxay taagan tahay haatan in kooxaha weyn isu wada raaceen waxay taagan tahay in markii hore waxay ahayd muraawada markii hore waxay ahayd talab markii hore waxay ahayd tashjiic hayta lak markii hore waxay ahayd jawigoo la fiicnaysiinayo qura qallaqat ilabwaab markii hore waxay ahayd inay waxoogaa gacanta ku daydo oo soo riixido wastabaqa albaab laakiin hadda arrinku halkaa wuu dhaafay waa tahdiidkaba dambaysa waa ama waad samaynaysaa waxa lagaa rabo ama xabsigaad gelaysa ama waad samaynaysaa waxa lagaa doonayo ama xabsigaad gelaysaa bay hadda joogtaa qofka mu'minka ahi ee ilaahay ku xidhan subxaana watacaala waxaa jira silaax hub khatara oo gacanta qofka muslimkaa ku jira inuu isagu isticmaali garan waayo mooyaane waa hub laxdad kasta oo naftu isugu kaa timaada haddaad adeegsato la huba inaad ku guulaysanayso waa hub ilaahay qur-aanka in badan inoogu tilmaamayo ambiyada tilmaamayo ambiyada waa ka ilaahay nebi walba intuu kasoo warramo dhibta haysatay isagoo ilaahay beri fastajabnaa lahu ilahay ku wada tilmaamayo waa hub runtii dadka mu'miniinta ahi waxgoyntiisa in badan oo kamid ay ilowday oo aanay xasuusnaynba asbaabo kale iyo meelo kale bay u jeestaan marka dhibtu ku timaadada nabiyullaahi yuusuf wuxuu bilaabay inuu hubkiisa adeegsado qaala rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh wailaa tasrif canii kaydahun asbu ilayhin waakun min aljaahiliin ilahay buu baryay qaala rabbi buu bilaabay qofka muslimka ahina hadduu ilaahay si dhaba gacmaha ugu taago ilahay ma hoojiyo hadduu si dhaba ilahay gacmaha ugu taago ilahay ma hoojiyo qofka muslimkii wuxuu rumaysan yihi naftiisa iyo qalbigiisuba bayna isbacayni min asaabici araxmaan inuu ku jiro yuqalibuha kayfa yashaa siduu doono inuu alla u rogrogayo subxaana watacaala wuxuu rumaysan yahay meel kastoo adagoo uu galo naftu inay kollayba daciif iska tay wakhuliqa alinsaanu daciifa waa daciif insaanku idan wuxuu ku xoog yahay markuu ilaahay ku tiirsado subxaanahu watacaala wuxuu arkayaa naftiisu inay khatar ku jirto maxay khatar ugu jirtaa shahwatu nafsiha bay khatar ugu jirtaa qofka mu'minkaa cadowga ilaahay ka fogeeya ee janno ka durkiya naaru kaxeeya waa isugu mid walaw kaanat nafsuhu alatii bayna janabayhana ha ahaatee waa isugu mid isku sibuu ilaahay uga magan galaa cadowga khaarijiga ah ee gaal leh ee shaytaan leh
iyo markay naftiisuba ay noqoto tuu ka cabsanayo wuxuu ilaahay ka baryayaa subxaanahu watacaala. zinadu wax fudud maaha. innaga waxa weeyaan acmaashii waaweyneyd ee kabaa'irta uu nebigu ku tilmaamay almuubiqaat, kuwa waxalaaga, ayaa say maskaxdeena ugu soo noqnoqonaysay agteenna loogu samaynayay suuraddeeda aynu arkaynay aya waxay nala tahayba koob shaaho la cabay, wax weynba maaha. laakiin nabiyullaahi yuusuf xabsigu waxba lama aha. marka kan xabsigu waxba lama aha. walidalik wuxuu isticdaabsanayaa la weyn inuu zino ku dhaco, dabeetana taa meel kala daaya hadduu meel kale uu ku baxsado waayo oo meesha ku baxsanaya ay xabsi uun tahay, dariiqo kale aanay furayn, ayuu wuxuu ilaahay baryayaa inuu xabsiga ka dooranayo haddii dariiq kale la waayo oo lagu badbaado. markaas bu wuxuu leeya rabbi sijnu axabu ilay, ilaahayow xabsiga ayaa agtayda looga kalgacal badan yahay. waxay haweenkaasi igu yeedhayaan mima yadcuunanii ilayh. imka waa jamaaca oo waayo haweenkii meeshan fadhiyey ee loo keenay waa kuwii bilaabay ma hada bashara in hada ila malakun kariim, dabeetana safkii islaantaa la raacay. marka waa jamaaca dhan hadda soo dhaaftay islaantii qurahay. saa daraaddeed bu wuxuu leeyahay ilaahayo waxa agtayda xabsigaa lagaga jecel yahay mima yadcuunanii ilayh. jamaacadasani waxay igu dhawaaqayaan ilaahay haddaanad iga sarfinayo iga kaxayn buu leeyahy kuwan kaydkooda iyo dhagartoodana asbu ilayhim. kayd nisaa markay tahay mas'alat shahwa, nin kastoo caqli badan xagga kale u rogi karaa. waa masale khatara. walidalik waxaa layna faray inaynu albaabadan awdno marka horeba. waxaa la yidhi qul lilmu'miniina yaguduu min absaari, mu'miniinta waxaa tidhahdaa ishiina dhowrsada. wuxuu nabigu tilmaamayay salawaatu ullahi wasalaamu alayhi iyaakum aljuluusa fi turuqaat, wadooyinka ha fadhiisanina. ma ka maaranaba markay yidhaahdeenna waxa la yidhi xaqeeda siiya. xaqeeda maxaa kamida markay yidhaahdeenna waxa la yidhi gadu lbasar, isha ceshada. wuxuu nabigu tilmaamaya aragtida hore qura ayaad leedahay, laakiin ta labaad ma lihid. xadiisku cali nabigu uu tilmaamay. wuxuu nabigu salawaatu ullahi wasalaamu alayhi tilmaamaya wax allaaliya nafta waxaan meeshan geynayo dhan marka hore la awdo, oo ay kamid tahay qaawanidu. oo ilaahay subxaana watacaala inooga digay ya bani aadama qad anzalna calaykum libaasa yuwaari sawaatikum warisha wa libaasu taqwa dalika khayr dalika min aayaati illahi lacalahum yatadakaruun. ilaahay subxaana watacaala qisatu aadam uu inoogaga soo digayey inuu isqaawisku mamnuuciyo. haweenku rususha ragga soo jeedisa inaanay isticmaalin marka ay suuqa marayso. catarkan iyo sbuufiskan iyo waxa kani waa risaala ay soo eeg, bale waxa la diiday codka jaban inay ku hadasho. ya nisaa nabiy, ilahay muxuu tilmaamaya haweenkii nabiga salawaatu ullahi wasalaamu alayh ayaa la dhaha falaa takdacna bilqowl fayatbaca aladi fi qalbihi marad. kuwa kale maxaad umalaynaysa? hadalka ha jejebinina baa la yidhi, yaan kuwa qalbigooda bukaa idinsoo hunguraynina. waxaa ilaahay subxaana watacaala diiday sawdka codka daa inuu noqdo hadal musiire. waxa la diiday socodka iyo jagacjagacdiisu inay tahay wax soo jeedinaya. oo maxaa la tilmaamay? walaa yadribna, ilahay muxuu tilmaamay walaa yadribna biarjulihina, cagaha dhulka ha ku dhufdhufanina baa la yihi liyuclama ma yakfina min zina, si ay loo ogaado waxa ay qarinayaan. jamjamta tani u fiirso, shayaaiinu linsi waa xarfaan. gabadh kasta kabaha laga iibiyaa gabadhu waa kacab dheer buu leeyahy, cidhib dheer. maxaa dumarka kaba isku siman loo siin waayo? waxaa loo siin waayo waa falsafati tamayul. waxaa la rabaa inay dheeldheelido. dheeldheeligeeda wax badan tilmaamaya. kaba dumar dhammaantood waa qaraafic. habar yar hadday dhinacaaga marayso waad garanaysaa, dhag 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 dhagtaad maqlaysaa. in hadduu dhinacaaga maraya garan mayso. sababtu waa maxay? shayaaiin linsi waljini yuxyi bacduhum ilaa bacdin zukrufa alqawli gurura. waxa kan way isu waxyoodeen. waa falsafa ah in aan gabadhu marna jidhkeedu silmin, oo hadday ka gaaban oo dhulka leeg ay qaadato sidii bashar caadi ahaa bay u socon lahayd oo degan. laakiin marka kab dheer loo xidho waynay dheeldheelida. kab kastoo dumar uu sitaa hoostay qaraafiic ka tay, kabaa raggu ma sanqadhaan. kab kastoo dumar seeta hadday gabadha agtaada marayso qudhubqudhubteeda ama buur ha seeto ama waxay doonta ha seeto, waa kab sanqadhaysa. kabta dhawaqeeda iyo garaacisteeda ayaad maqlaysaa. waxaa ka muuqata
haddii la rabo inaan waxaan lagu dhicin waxaa muhima in marka hore la awdo albaabkeeda oo dhan. haddii halkaa lasoo dhaafase oo environmentka noocaasi aad soo dhex gasho, nin ra ka tegay unbaa sugnaada markaa, nin ra ka tegay ayuunbaa sugnaada. walidalik buu nebi yuusuf ilaahay baryaya subxaana wa tacaala inuu xabsigu ka roon yahay kuwa kani meesha ay ugu yeedhayaan. ilahay baa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala faاstajaaba lahu rabuh fasarafa canhu kaydahun inahu huwa الsamiic اlcaliim. ilahay subxaana wa tacaala ducadiisi uu ka aqbalay, kaydkii dumarkanna waa ka kaxeeyey. waxaan leenahay naftu bini aadamka ahi waa baahi ay qabto waxa kale. ilahay wuxuu ugu talagalay subxaana wa tacaala si nasligu u joogtoobo inuu baahidan qofku yeesho. waxaa loogu talagalay baahida tani si sharciya inuu qofku u sameeyo oo uu arrinka kan u samayn karo. walidalik ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa ragga iyo haweenka cilaaqada ka dhaxaysa inay tahay cilaaqo khatara. taarikh albashariyana waxaa la yaqaanaa mar kastoo cilaaqadaasi ay fasaado fi taariikh, waa mar kastoo basharku uu ila alxadiid qabto, xagga dhulka hoose u qabto. sidaa awgeed ayuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu ina barayaa inaynu meesha tan zinadan iyo waxa ku saabsan oo dhan inaynu albaabkooda awdno, oo qofka mu'minkii uu ka joogsado dhibtaasi. kow waxaa la faray markaas inuu rag iyo dumarba la dhowro isha. waxaa la isfaray haweenku iyagoo cadar sitay inaanay soo bixin. waxaa la isfaray haweenku inay zayi islaamiyo xishmadi ka muuqato ay qaataan. waxaa la isfaray inaanay codkooda jejabinin. waxaa la isfaray inaanay cagaha dhulka ku garaacin. waxaa la isfaray ziinadooda inaanay dabadda usoo dhigin. waxaasoo dhami waxa weeyaan qofka mu'minka ahina inuu waxaan o dhan ka fogaado weeyaan. basharku nuqdadatan aada buu daciif ugu yahay. walidalik ba xataa kuwan dhaqaalaha ka fekeraya insaanka markii la daraaseeyey ee la ogaaday inuu meesha tan aada ugu jilicsan yahay ayaa waxaa laga dhigay inuu noqdo suwarka musiirka ahi iclaanan likulli shay. iclaanaadka ma egteen xayaysiis aan gabadh tafaxaydani ku jirin ma jiro. haddii taayir la xayaysiinayo horta tuqaawan baa soo boodaysaa, markaasa aragta kadib aad arkaysaa taayir gaadi oo laga warramay. taayir iyo gabadh maxaa iskaga xidhan? yani waxa haddii taayir la xayaysiinaya in laga warramo adeygiisa iyo suu neefta uxejiyey iyo soo kano oo macno taayir la xayaysiiyo. laakiin iyadoo taayir la xayaysiinaya marka hore gabadh qaawan la keenaya. markuu qofku intibaahiisu ninku markuu soo jeestay xoog loo eego ayaa taayir ordaya ama gaari xiimaya soo baxaya dabeetana. waayo nafta bini aadamka markay daraaseeyeen waxaa la ogaaday sida loogu jajabay. ma jirto sheekadan tidhaahda ma jiro nadra baria iyo ikhtilaaq baria iyo waxaasi ma jiraan. xataa ma waxay yidhahdaan gharaistu shabca ma gaadhaba, dheregi ma jirto bay yidhahdaan, ee shuduud iyo inxiraafkunbaa kusii bata. waxay yidhahdeen zinadan iyo waxa kan kala celintan dadka la kala celinayaababa dhibta keentay. haddii la isku soo dayn lahaa wax waliba iska caadi bay noqon lahayn. waa la isku soo daayey. waxa la yidhi waliba yaan cuqdad laga qaadin ha loo dhigo. ilmaha yari markuu iskuulka galo dugsiga hoose iyo meelahanba yurub la isugu dhigaa. iyagu waxay yidhahdaan ilmuhu siduu uurka u gala iyo siduu u dhashay waxaasaa la baraya. laakin waa sheeka ee zinadunba la rabaa in la baro. waayo waxay ka dhaadhiciyeen freud iyo falsafadoodii inuu yahay caqliga bini aadamku xanuuna inay ku dhacaan gebigiisaba waalida keena haddii rag iyo dumarka la kala celiyo. hadihi hiya falsafa yani haabita oo culumtan ay noogu sheegayaan psychology, cilmi nafsiga ay sheegayaan. alcilmi nafsi taxliili weliba waxay yidhahdaan wuxuu ku salaysan yahay fikrad ka dambaysa inta badan ah xuriyat in laga dhigo sagaska ama jinsiga shay mushaaca. way ka dhigeen. waxay yidhahdeen in wuxuu markii laga dhigay usii baxay ila alinxiraafi washuduud, ilaa iyo uu noqday wixii la arkaba in la fuulo.
dad iyo dameer iyo xoole iyo wax walba inay fuulaan. waa markii inxiraafkooda waxay ahayd dee haddii rag iyo dumarka laisku sii daayay waxaan inuu noqdo maxay wax caadiya, laakiin waxay leeyihin markii laisku sii daayay kasii darto waxay noqotay wax maxay tasawuraadka basharkaba ka baxsan. waxaan leenahay shahwatu nafs waa masale cilaaj u baahan. ilahi subxaana watacaala cilaajkeedana wuxuu ku tilmaamay inuu yahay ixsaan, inuu yahay qofka muslimka inuu guursado, inaan hantidu celinin dadka guurkooda. waankixu alayaama minkum asaalixiina, ilahay wuxuu leeyahy u guuriya kuwii aan guur lahayn iyo dadka wanaagsan iyo addoomihiina iyo rag iyo dumarba addoomo ah. in yakunu waxaa la tilmaamaya hadday fuqara yihiin, ilahay baa yani cunsur lmaal yuu noqonin wax guurka ishortaaga baa laleeyahy. awal shay markaa waxayn leenahay waxaan waxa fudaydiya ee koowaade qofka muslimkaa celiya waa guur. saa daraaddeed buu nabigu salawaatu llahi wasalaamu alayhi wuxuu tilmaamaya ya macshar shabaab, war dhalinyaroy ninkii guursan kara guursa buu nabigu yiri, man istataaca minkum albaa falyatazawaj, ninkii guursan kara ha guursada buu nabigu yihi salawaatu llahi wasalaamu alayh. xalka uu leeyahay ugu fiicani waa kaa qofka muslimka ahi inuu guursado. xalka labaad uu leeyahay waxa weeyaan cibaado yaa la ku xidhnaa iyo qofku inaanu ilaahay marnaba ilaabin subxaana watacaala, oo ay ugu horeyso soon. waayo nabigu salawaatu llahi wasalaamu aleyh dhalinyarada wuxuu ku yihi ninkii guursan kari waaya faaleyhi bisawma la yidhi, isaga waxa korkiisa saaran inuu soomo, fa ina lahu kaa soonkaa wuxuu ku leeyahay ba la yidhi maxay dhufaanimo wija, soonkaas baa ilaalinaye ha soomaba la tilmaamo. waxaanu leenahay cibaada uu ka mid yahay zuhdigu, uu ka mid yahay baan leenahay khushuunat lcaysh. hadday naftu aad aragtay inay qooqday, gaashadu way qooq jabisaa nafta. in soon iyo cibaade habeenkiina la taago maalintiina la soomiyaa waxay noqonaysaa inuu hunguriga kan ilaago oo u dhigo. laakiin haddii la dhergiyo oo markay u baahato la cunsiiyo oo marka aanay u baahanna dadka kale lagu daydo oo lasii cuno oo caloosha sii buux dhaafto oo hareerahana bii-ada faasidkaa lagu sii noolaado oo tv-ga markaad furto tii qaawanayd ka soo boodo oo albaabka markaad ka baxdo tii qaawanayd taagan tahay oo shaqada taad ugu tagta ay tu kaloo qaawan tahay oon waxa laga hadlayo dham uu noqdo waxa kan, inaad dhowrsanaataa haddana waa masale aan fududay. ninka horta halkaa ku dhowrsanaaday ha niyeysto waa kuwa uu nabigu leeyahay jannay helayaan, waa kuwa la leeyahay carshi raxmaan bay harsanayaan, waa kuwa la tilmaamayo in ducadoodu ay mustajaabka tahay ee ilaahay subxaana watacaala kaga faydayo. waxaa kaloo kamid ah shareecadu ku ilaalisay in xuduud badee loo dejiyey, xad zinadu leeday, qadfigu xad leeyey, jalbi uu jiro, rajmi uu jiro, waxaasoo dham inay jiraan. ilahina qur-aanka subxaana watacaala wuxuu inoogu tilmaamaya wayuriidu aladina yatabicuuna shahwaata an tamiluu mayla cadiima. waxay doonayaan baa laleeyahy subxaana watacaala kuwa naftu waxay doonaysa iska raacay inay idin weeciyaan weecasho weyn ba la yidhi subxaana watacaala. ilahayna muxuu doonaya wayuriidu allahu an yukafifa cankum wakhuliqa linsaanu daciifa. ilahayna wuxuu doonaya inuu nolosha idin fudaydiyo, insaankuna marka horeba isagoo daciifa la abuuray baa la leeyahy subxaana watacaala. waxaan leenahay masalada tan marka waa fitra bini aadam oo lama dafiri karo. nin inuu gabadh u baahan yahay waa xaqiiqo jirta, gabadh inay nin u baahan tahay waa xaqiiqo jirta. ceeb maaha, ilaahay baa ku abuuray subxaana watacaala labadaba. laakiin waxaa loogu talagalay si uu mujtamacu u dhisnaado in loo guto, inay noqoto shahwadu mas-uuliya la qaadayo oo ninka mas-uuliyad guur reer caruur ay dabagelayaan, inaanay noqonin shahwa caabira qofku meeshuu doona intuu ku saydho inuu ka baxo inaanay noqonin.
walidalika waxaan leenahay mas'aladani waa masaa'ilka ugu khatar badan leh dadka galbeedka jooga ee inta badanna aan xalkeeda dadku isweydiinin ee maalin walba aad aragta dhalinyarada yaryarayd oo sii daadanaysa wuxuu qur-aanka loo soo dhigo meelaha masaajidka joogaba markuu dhowriyo 10 jeer gaadho un la waayaba inta yaryariina qur-aanku baa loo dhigo masaajida lagu hay maalinta 17 meelaha gaadhana mid dambe la arki maayo waxa ugu roonay dadka lagu hayn karaa waxay ahayd in maalinta 17 joogaba loo guuriyo goor xalaal tu xalaal lagu daro inantu markay soo qaan gaadhaba tu xalaal lagu daro intay dadka fasaadka la sameeyay lahayd tu xalaal lagu daro in loo tarbiyeeyo dadka kani inay nafsi xijin karaan laakiin mas'alo sida dadku moodayaan inay isaga fududahay oo isaga dhowrsanaan kara maaha weliba marka la joogo bii'ada faasidka yani bii'a muslima markaad joogto oo macaasidana ku yar tahay oo dadku iska xijaabaya ama calal aqal xishoonayo calal aqal uu yahay dad xishoodkii weli uu ku dambeeyo oo rag iyo dumar la isku sii dhexdaayo ama isa soloolanaya aanay jirin oo madrasada ama iskuulka yar uu tago aan waxaan loogaga sheekaynayn ama lagu akrinaynin waa laga yaaba qofku naftiisa inuu xoogaa ilaalin karayo laakiin marka bii'adan faasidka uu sii galo ee dugsigii loogu dhigayo ee tvgii uu ka daawanayo ee shaqadii uu ka arkayo ee way noqotay wax laga baayac mushtareeyo oo jaraa'idka ugu tirada badan leh tviyada ugu tirada badan leh aflaamta ugu tirada badan leh dhammaantood ay qurunkan un ka warramayaan oo qofkii ay adadkaataba inuu meelu kaga baxa u helo waxa qura uu kaga bixi karaa waxa weeyaan in qofka loo guuriyo axsan ariiqa waa qof kasta oo muslima oo guursan kara inuu guursado inaan waxba dib u dhigin qof kasta oo muslima oo guursan karaya inuu guursado waalidku inay fudaydiyaan oo ay ka daayaan brotocolkan tirada badan le iyo hantida tan iyo waxaan oo dhan in laga fudaydiyo waa ilmahagu inuu kuu dhowrsanaado hadduu inan yahay hadduu inan yahayba ayaa adiga khayrka kugu jira inuu kuu dhowrsanaado oo aanu kaa saaqitin ama aanu kaa lumin ayaa khayrka kugu jira saa daraaddeed in la fudaydiyo wax badan oo brotocolaadka tirada badan le laga daayo oo uu noqdo dadku ilaahay kelmadiisa inay isku banaystaan dabeetana ay xalaal soo ahaadaan waxaan kusoo koobaya wuxuu yahay shayطaanku walaa tatabicuu khuطuwaati shayطaan baa ilaahayna leeyahy quluu fi silmi kaafa islaamnimada wadagala baa ilahay yidhi oo tallaabooyinka shayطaanka raacina shayطaanku yani marba tallaabuu ku qaasiinaya maalinta hore haddaad sheekada dumarka kusoo dhiirato maalinta labaadna waxaad kusii yaro dhiiranaysaa meel wada jooga maalinta saddexaad waxaa sii fududaanaya xishoodkii iyo wixii idiin dhexeeyey siday usii socoto waa khuطuwaati shayطaan midiba mid bay kuu dhiibaysa meelay ku gebagaboobaysaa ma jirto ilaa iyo fasaadka mooyaane walidalik ba waxaa la yidhaha alwiqaayatu khayru min alcilaaj mushkilaadka in marka hore wiqaayada la isticmaalo dhowrsoonida in la isticmaalo kahortaga in la isticmaalo ayaa waxay ka roon tahay in cilaajka la isticmaalo waxaan kusoo koobaya marka ilahay wuxuuna leeyahy zuyina linnaasi xub الشhahawaati min الnisaa wاlbaniin xub الشhahawaat mar haddii la sheegay oo loogu horeysiiyey min الnisaa waxa ay tilmaamaysaa meesha ay kaga jirto mas'alada tani waxaan leenahay haddii kaa la dhowro oo afkana la dhowro dee nebigu wuxuu ballan qaaday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ciddii afkiisa iyo farjigiisa dhowrta ee muslima inuu isna janna u ballan qaadayo adman lahu ljanna buu nebigu yiri labada haddaad ka adkaato janna waa jirtaa buu nebigu lehy salawaatu ullahi wasalaamu caleyh naftayda iyo tiinaba waxaan kula dardaarmayna inu ilahay ka cabsano subxaana watacaala dareennana qalqallooca nafta bini aadamka ay leedahay oo inaan daawo ku dayini kahortaga inaynu ku dayno iyo albaabadaas oo dhan saynu xidhi lahayn wallahu aclam wabilahi tawfiiq.